in yar waxaad dib ugu yar noqotaa waxaan igu maqaalaa inaad qaraamigii wax ku lahayd bal qaraamigii ku yar noqoo horta dadkan imika bal hadda qaraamku wuxuu ahaa bal u sheeg qaraamigu saddex qaybood ayuu ahaa qaybi baarcadaha ayay ilaa hal qaadanaysa qaybina gabayaasha ayay ahayd oo ilaa boodhari ayay soo sinnayd ninba nin uu kasii dhaxlaba waxaan garanayaa nin ina tafa lo odhan jiro milatariga ahaan jiray oo markii dambe idaacadda gabaya ka soo saaray oo odhan jiray gabaygiisaasi uu ahaa yani adduunyada sida ay noqon doonto ya saddexda maal adduunkii hayay ee saatir wuxuu dhiibay saboolkaa ka yidi diilo roon sugaya mawlaaya waa duni faqiirkiiyo silmeen dinigii seexda waa minay faqiirkiiyo silmeen dinigii seexdaay waa minay gabdhihii seemanaa suuqa haddii ma sugaan risiqa meel haddii looga soo sidee waa minay gabdhihii seemanaa suuqa marayaan waa ina tafe sidaa ayuu ahaa gabayga gabaygaasay ahayd qaybina baarcadda ahayd qaybina waxay ahayd qaraamigan la fadhiisiiyey kamankiiyo dabka iyo defka lagu soo tumi jiray markii dambe tadawura qaatee kolba isbedelee markaa dee raggii cadan ka yimid ee aan kuu sheegay ayaa la yimid markaa baarcadaha markaad ku noqoto sidaa ina tafo oo kale magacyadii aan ku dhegahay aad ka garanaysa qawdhan cali oo kale xayaadkii qawdhan budhaydiye qawdhan cali waxaan ahay qaranka xoosh qamaamuurta axmed nuur qusuusida reer shirdoon halkaasu marin jiray markii dambe asaga laftiisu u casriyeeyey oo wuxuu odhan jiray sidiisa baarcaddaa loogu qaad jiray u bedelay markaa luuqdii wuxuu u bedelay naasku kolka naasku u gumboobo kolkay geydhaysa timaha ya aduu hees sidii wax hees u egoo kale ayuu sameey taasina sidaasay ahayd qaraamigii maxaad ku lahayd qaraamigii waxaan ku lahaa heesaan la yidhaahdo kaariyo codka kaar baad anaa sameeyaa bal marka waxaynu soo yargalnay waxoogaa sidii aad hal abuurkii wax u bilowday talxiintuna waa hal abuur kale iyo cod samayntu markaad adigu codka samaynayso sideed u samaysaa ninbaa kaman u qaataa ninbaa daasad ninba sibuu waxbuu u cuskadaa runtii ma markii hore mise markii dambe midba markii hore luuqdii sidii dee geela ama loogu heesi jiray ama looda ama adhiga ee suugaantu dee intaaba way soo taxnayd hees hawleedkeenna codkeenna ahaa ayumaanu ka samayn jiray for example waxaa jiray hees aan sameeyey oo ka warramaya naftu waxay tahay heeskaa kaar ayaan ku sameeyey marna waxaan ku sameeyey riwaayaddaa lafteeda soomaaliya ay gidigeen markaa gudideen miyaa garatay intoo gabata inaan gobolka ahaada nin gaadh haye iyo guraamooye dadyo xalay goora horudeen geeskii afrikaa gabiyo wuxuu yidhi gaal iyo nacabka iguu degay googoye hilbiya ay kala guray idinkoon guuto waa inay guntata soomaaliya gidigaa markaa gudideen miyaa garatay intoo gabata inaan gobolka ahaada anigoon godol iyo waayinka siin gawrac iyo ubadkaygii gaasha dishay geedaa dhaanta nolosha tii ku gabta xarbaa gala geedka oo jabiyey idinkuun geesi waayin ii galgasha soomaaliya gidigeen markaa gudideen miyaa garateen intoo gabataan inaan gobolka ahaada guuntaa ka xaanaqada guurliida guutii yareed kolkay gelbiyaan guhaada naftoo garayska jarta gogashay duubataa ka guurtaa soomaaliya gidigeen iyada gobonimo ay garabtaal soomaaliya gidigeen markaa gudideen miyaa garateen intoo gabataa inaan gobolka ahaa
ugaadhaa garanaysa ganatada ganatada intay gig ka siiso oo dagasha gasha haddaanay horgoyn ma gaadhaan wiishaan gabbanoon dib uga guran ayadaa geeska fiiqa soo gelisee ayadoy gobonnimo ay garabtaal soomaaliya gidigeen markaa gudideen miyaa garateen intoo gabataa inaad gobolka ahaada hadduu guluf qaado guunyada intaanu galban in la rugageyn waa loo gurmadaa la gaari jiray ayadoo gabonnimo ay garabtaan soomaaliya gidigaa markaa gudideen miyaa garateen intoo gabataan inaan gobolka ahaada aan gaab sheeguntii waxay tahay geesigu ma qarsoomo galwoon nin lagu go-an tahay ma galo orod gaaridu ma ogola nin goorxun socda gogashay kolkuu soo galay guhaadaa gogashay duubataa ka guurtaa dagaalkaa la gudboon ninkaan gelinee gabada maalintaa xun ima geeya buu markaa dhulku yidhi taasina dhulkay ahayd waa heestaas ayaan luuqdaa ayaan ku sameeyey markaa cabdi ducaala alla yarxamo heeskii nin jeen cadalla yidhaa baan siiyey oon midho kale ugu sameeyey midhahaasoo ayaguna ahaa sabaan ka sabaan marka hadda sabaan ka sabaan adigoo dhur sugay sareeriya haysta subax wacan naftaas aan cado aan kugu simi sabaaliyo waana kaama sugto jeeroy sakaraada saldhigi mayso samaantuna waa usa xariir siracay u taqaanin inuu sad yahay sun qoosan xabka sibiq inay u liqdo si hawl yarna ay u socotaa ya heestaasina taasay ahayd oo looqdii dambe ee markaa cabdi ducaala ay yeedhay niman cadan baa soo weydiisay oo tiri bal ninka codkaa sameeyey waxa hayey ya noo sheega cabdi ducaala dabeeta ii yeedhay u yeedhay jeen caddi aan siiyey markaa jeen caddana wuxuu yidhi anumaan samayna ninkaasaa sameeyey wuu ii yeedhay dabeetana heeskii hore aan ku sameeyey cabdi ay weydiiye oo yidhi maxaad heestan ku keentay codkii hore aan ku sameeyey ee soomaaliya gidigeen ahaa gaadii baan u mariyey kolkaasuu adeertaa waa laynagu qabsanayaa inaga jooji sidaa ayaan ku joojiyey waxaynu maraynay dhowr iyo kontonkii 8 iyo gardiid waa la diid qaraamigii waynu soo dhaafnay miyaad muusiga tuntaa muusiga inta aan markii dambe intii hore baan tumi jiray imikadan qudheeda ma tumo laakiin markii aan sidaa usii dhex galay een riwaayadaa sameeyey ayaan isku dayey inaan bal hadda xadhkaha barto dabeetana xadhkahaasumaan ku dhufan jiray kolba xabad codku sidaasu dabeetana ku walba aan ku samayn jiray markaynu qaraamigii dib ugu noqonno matalan adigu kaar baad lahayd iyo murug labadaaba adigaa lahaa labadaaba aniga la xaggii qaraamiga raaxeeye ka waran raaxeeye ninkii lahaan jiray halac ayaa la odhan jiray halac baa lahaa laxankaas halacna nin dhakhtar ka shaqayn jiray ayuu ahaan jiray ninkaasina dee raggii ka mid ahaa ayban iyo asaga iyo nin hilac dheere la odhan jiray asna dhakhtar ka shaqayn jiray iyo nin ina nuur khabaas asna la odhan jiray oo ahaan jiray cook raggaasi dee kolba lod baa wax u dhiibayey kolba lod baa lod ahaan jiray markaynu xilligaa ku noqono qoladaa halac iyo dhakhtarka joogtay qolay ahayd oo quraarada dawada qubaya qalfoof iyo qaada dhaantada iyo aniga dhakhtar iyo dhul baa bukay dheedhe waadka haydhige xaggana koox ayban iyo ay foolaad u yihiin ayaa joogtay qoladii gaadiid isku mid bay ahaayeen bal hadda imise kooxood baa jiray oo ku shuqlanaa arrintaa intii ku shuqlanayd dee horta wuxuu isa soo gaadhiyay qoloba meelumay ka soo geli jirtay sidan walaala hargeysa qoloba maalin ay soo gashay walaala hargeysa noqonaysay marka raggaa cadan ka yimid iyo ayagu isku kiis bay ahaayeen ilaa bilaayacas allah yarxamo cabdilaahi qarshe oo asna wax tumi jiray oo 48 isagu inoo yimid waxaa ka mid ahaa maxaan ku dhahday nin la odhan jiray caduur cali axmed waxaa ka mid ahaa nin dulcada la odhan jiray waxaa ka mid ahaa nin caydiid la odhan jiray dee way fara badnaayeen oo dadku wada heesi jiray kolkaa marna waa la wada gebi jiray marna waa la wada heesi jiray
bilowgiina baarcadiya waxaasay ku halkaasay ka timi iyo suugaantiinii miyiga iyo dhaantadii yaa diiriya baalbaal soo gaadheen diiriya baalbaal waxaan soo gaadhay codkiisa waay ya isaga maad arag shalu maray sheelaraad kori jidhku wuu bannaan yahay soo dhacali baraawada berberaad ka shaqaysan doontahay diiriya naxariista jannaalahaas Allah